أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 19 oo suuratul macaarij kamid ah. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nooga soo waramayay casharkeen aad ugu dambeeyay qolooyinka mushrikiinta ah oo bacsiga iyo qiyaamada inkirsan waxyaabaha marka maalinta qiyaamo ay la kulmaayaan. marka Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala markuu qiyaamada iyo axwaalihiisa nooga soo waramay maalintaas qiyaamadu ay dhacayso mujrimka kaafirka wuxuu tamaninayaa inuu isaga furto maalintaas cadaabka jira awlaadiisa xaaskiisa walaalkiisa qaraabadiisa oo markaasi nasab ahaan uu galo iyo wixii arladaas jooga dhamaantooda dabeedna arintaas ay koriso asaga kaligiis. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala isagoo tamanigiisa radinaaye ka jooga u dhahay ilaahay tani waxa weeye naarta la yiraahdo weeye waxay diiranaysaa haraga dadka kiisa oo markaasi kufaarta ah oo naarta ku jira waxay u yeeraysaa dadka ilaahay rumayntiisa iimaanka ka jeestay alla la rumeeyay rasuulkiisa oo maalka kulmiyay oo haddana maalkii xuquuqda aan ka bixin ayay naartu u yeeraysaa sidaanu casharkeen hore ku soo mareynay. marka Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala dabciga insaanka asagoo ka waramaya jinsiga insaan innal insana insaanka uu dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala khuliqa waa la abuurow dhahay ilaahay haluucan xaal uu yahay kii maman ama haluucan xaal uu yahay kii hunguri weyn. tafsiirkeedu sida tan weeye haluucanta ilaahay waa fasira Allah wuxuu dhahay idaa waqtigii massahu sharru sharta ay taabato dhahay ilaahay jazuucan waa mid argagax badan wa idaa waqtigii massahu khayru khayrku uu taabtane oo wax khayra la siiyo manuucan waa mid mancin badan dhahay ilaahay oo xaq ilaahay ka bixi maayo illa almusalliina ilaahay kuwa maaratay mu'miniinta mooyaane. marka Allah subxaanahu wa ta'aala insaanka ayuu ka waramayaa jinsigiisa oo ka waramayaa. marka insaanka waxyaabaha markaasi uu ka abuuran yahay oo dabcigiisa uu yahay inuu xoolo jacayl uu yahay. xoolaha marka uu jecel yahana dhibaatadana uusan u adkaysan haddii ilaahay xoolihi uu siiyane inuusan xuquuqda uusan ka bixinayn ilaa intaan la soo reebay oo ilaahay insaanka uu ka soo istisnooday mooyee. sifaadkan hadda ilaahay uu noo sheegi doono dadka iska leh dadkaas ayaa waxa weeye dabcigaas ka baxaya. wixii sifadan laga waayana waxay noqonayaan waxa ku sifoobay sifo xumay noqonayaan. Allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala innal insana insaanka khuliqa waa la abuuray oo dabcigiisa waxaa lagu abuuray inuu sidatan yahay. innal insana insaanka khuliqa waa la abuuray
haluucan ow dha ilaahay xaalow yaa kii maman amase kii hunguri weyn oo markaasi aad iyo aad u xoolo jecel. waana sida tan ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala idaa waqtigii massahu sharu sharta ay taabato, haddii waxa weeye dhibaata ay ku dhacdo oo faqri ou ku dhaco oo abaaru ku dhacdo oo cudur ou ku dhaco oo ahalkiisa oo waayo wax uun maaragtay sharoo dhammaan laga wadaa. idaa waqtigii massahu sharu sharta ay taabatow dha ilaahay, wax shara markay taabtaan. jazuucan waa mid argagax badanow ilaahay, waqtiga shartaasu ay taabanayso aad iyo aad ayuu u argagaxayaa. wax markaasi dulqaada iyo sabar iyo midna ma laha, iyo qadarka iyo qadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadiray inuu raalli ku noqdo ma laha intaasoo dhan. marka halacan culummadu waxay yidhaahdeen markay fasireen waa fuxshul jazac ay dhaheen, argagaxa xun weeye, maca shiddati alxirsi, isagoo qofku haddana xariis uu yahay oo xoolaha uu jecel yahay oo adduunyada uu jecel yahay oo aad iyo aad u jecel yahay, wa qilati sabri, sabarna uusan lahayn. marka shuxiga iyo halaca, shuxigusa waxaa weeye maalka lagu bakhiilaa la yidhaahdaa, iyo loo degdego waxyaabaha aan habboonayn oo lagu dhaqmo. wa idaa waqtigii massahu lkhayru, khayrka ou taabtow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala, masalan ba maal ayuu helay, manuucan waa mid mancin badanow dha ilaahay, oo haddana waxaa weeye maalkii waxba ka bixi maayo, wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala u nicmeeyey waxba ka bixi maayo, daacada rabbigiisa u eeli maayo, xuquuqdii waajibka aheedoo sidii sekadii oo kale ka bixi maayo. ila almusalliina ow dhah ilaahay, hadda istisnahan insaankiyaa laga istisnoonaya, laga soo reebayaa. maxaa yeele muraadka hore waa soo marnay jinsiga inuu yahay, istisnahan marka waa mutasila leeyahy. hadda musalliintan waxaa weeye waa mu'miniinta la yidhi, waxaa musalliinta loogaga dhigay oo musalliinta laftirkoodii salaada dukana mu'miniin lagu fasiraa. mu'miniinta waxaa weeye dadkii maaragtay musalliinta ayaa waxaa lagu fasiraa mu'miniin meeshaan. maxaa yeele salaada oo sharciyada ah la yidhi, iimaana ka laazimaya. maxaa yeele ilaahay waa tawdha aladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna u dhihi doonaa ilaahay. marka hadda dadka markaasi salaada wanaagsan dukada ayaa mu'miniin saxa ah. markaasuu dhah ilaahay ila almusalliina u ilaahay, kuwa dukanaya mooyaane wa iska dhigi kartaa ila almusalliina, kuwa mu'miniinta mooyaane. wixii kale markaasi oo bukhliga ahay oo halaca ahay oo maal jacaylka iyo waxa weeye xuquuqda laga manciyo maalka, waxaas waxa ku sifooba waxay noqonayaan sifaadkan waxaan iska lahayn inay noqonayaan markaasi kufaarta iyo munaafiqiinta waxaasay noqonayaan. kabacdi ilaahay sifaynayo aladiina kuwaasoo hum ayagu yow ilaahay, aladiina musalliintaasoo hum ayagu waana mu'miniinta weeye, aladiina mu'miniintaasoo hum ayagu calaa salaatihim salaadoodow ilaahay daa'imuuna kuwa daa'imaya ah. waa dadka markaasi salaada sharciga dukanaya, taasoo iimaan uu ka laazimayo, salaadooday daa'imaan ow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala. aladiina kuwaasoo hum ayagu calaa salaatihim salaadooda daa'imuuna kuwa daa'imaya, salaada mar walbay salaada dukadaan. qof salaada mar dukaya marna ka tegaya, kaas waxaa weeye maaragtay ma soo gelaya arrintan. salaada iyadoo adda ah oo waqtigeedii lagu dukayna ka tegi maayan, hadday lacalla ka tagtana waa soo qalaynayaan oo salaadii waa dukaan walow khaarij alwaqti ale, waqtiga banaanka ba Allah ka dhigo. markaasuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala waladiina musalliintaasoo fii amwaalihim maalyaalkoodow ilaahay xaqun xaq uu yahay, macluumun oo la og yahay, lisaa'ili midka su'aalanayana uu u yahay, iyo walmaxruumi midka la hoojiyey. dadka wanaagsan oo mu'miniinta ah oo ilaahay kuwaas xun uu ka soo reebay, jinsigaas insaanka oo markaasi halaca iyo markaasi ku suhooba jazaca iyo manciga, waxau dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waladiina ayuu dhah ilaahay musalliintaasoo hum ayaga fii amwaalihim maalyaalkooda xaqun xaq uu yahow dhah ilaahay, xaqaasoo macluumun loo la ogyahay. xaqa macluumka ahoo maalkooda ku jira muxuu yahay? zakada waaye, xoolahooda zakada waa ka bixinayaan. lisaa'ili midka su'aalanaya uu u yahay, iyo walmaxruumi midka la hoojiyey, oo waxay xaqaas macluumka ay siinayaan midka saa'ilka ahoo weydiisanayo waxaas halaysiiya dhahaya,
iyo midka su'aasha ka dhowrsanaya intaasba waxa weeye xaqa u ah marka xoolaha waxaa la siinayaa qofka saa'ilkaana waa la siinayaa midka qayru saa'ilka oo sharafta leh oo waxa weeye cirligiisa sharaftiisa ilaalinaya kaas isagana waa la siinayaa intaasba waxa weeye walaxay siiyaan maalkooda haday wixii macluumkaasiisa kadii oo kale ayay siinayaan hadii kaleentood wixii tadawucay xataa siinayaan lisaa'il wal mahruum iyo ilaahi mahruumku waa midka mutaafifka oo su'aasha ka dhowrsan sharafta uu leeyahay ayuu su'aasha uga dhowrsan yahay walladina musalliin taaso yusaddiquuna rumayna yawda ilaahi subhanahu wa ta'ala biyawmiddiin abaalmarinta maalinteeda rumaynaya walladina ayuu ilaahi musalliin taaso yusaddiquuna rumayna yawda ilaahi subhanahu wa ta'ala biyawmiddiin abaalmarinta maalinteeda dadka musalliinta oo la soo reebo muuminiinta waxay rumeeyaan maalinta yawmuddiin kaleela yawmul jazaa oo qiyaamo in Allah isu soo bixiyo la abaalmarinayo ayay hadana rumaysan yihiin walladina musalliin taaso ayuu dhahay Allah hadana hum ayagu min cadaabi rabbihim rabbigooda cadaabkiisa mushfiquuna la cabsanaya cadaabka ilaahay ayay ka baqayaan in qiyaamo markaas la cadaabo ayay ka baqayaan oo makriga ilaahay kama aamin ah walladina musalliin taaso ayuu ilaahay hum ayagu min cadaabi rabbihim rabbigooda cadaabkiisa xaqiisa mushfiquuna la cabsanaya cadaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay ka baqayaan maxaa yeelow ilaahay inna cadaaba rabbihim rabbigooda cadaabkiisu غير مأمون مد لغا آمن يهي غير كيس واي عذابك إلهي لغا ما آمنها فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والإلهي إلهي سبحانه وتعالى مكر جيسة ضدك خساري مويان عدكالي مارتي كما آمنها مركا الله وحوده سبحانه وتعالى عذابك إلهي أي لبقايان محايا يلود إلهي إن عذاب ربهم ربي قوذ عذاب كيسة أو إلهي وحي كفرية أو عاصي وعذابايو غير مأمون مد لغا آمن يهي غير كيس واي لغا ما آمن هوي إلهي سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد أن يأمنه أحد عذابك إلهي إنه كآمن هذا مكوها بونا منا أبنانا وإن بلغ في الضاعة يعني ما بلغ وهوي الضاعة ما شو دونا بها كوغار عبادة مالك سوء كوغار تبا هي ضاعة إلهي عذابك إلهي إنها كآمنها تماما معايا لو واحد كلمة يسا صفادة مركا قفك الشخص قا وحا لغا دلبيا حالة الصحة مركا وكجره هي مركا وكجره حالة المرض حالة الصحة مركا وكجره بين الرجاء والخوف وإنه هذا مركا وعافمات قبو رجاء يا عبسي oo ilaahay naxariisiisa oo damcay cadaabkiisana oo ka cabsanay inay labadaas ay maarataya ay markaas isugu mid yihiin araba oo ku sugnaado bayna rajaa wal khawf oo ku jiro laakiin markuu mariid oo noqdo oo naftiisa oo ka qooso yatamaharu rajaa rajada ilaahay ayuu markaas u baraxtiraya oo rajada ayuu ku soo haraya maxaa yeelay waqtigaas waqti dhanniga ilaahay loo wanaajiyo oo aad iyo aad markaas waxa weeye raxmadda ilaahay loo sheensado way markaas aimada ayaa ka warro imaam nawawi ayaa aad iyo aad kutubtiisa uga warraba arintaas ilaahay marka wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala walladina musalliin taasoo hum ayagu musalliinti baa mar walba la sifaynaya li furujihim farjiyashooda ilaahay xaafiduuna kuwa xifdinaya dadkaas hadana waxa weeye ilaahay uu soo reebay oo sifaadka wanaagsan iska leh waxa sifadooda kamida inay farjigooda ilaalinayaan oo waxa ilaahay uu ka xarimay farjigooda ay ka dhowrayaan rag haday yihiin iyo haday dumar yihiinba walladina kuwaasoo hum ayagu ayuu ilaahay li furujihim farjiyashooda xaafiduuna ilaalinaya farjigooda waxay ka ilaalinayaan waxa ilaahay ka xarimay ka dhowrayaan ilaa hada waatan inta aan laga ilaalinay ilaahay soo istisnoonaya ilaa ala azwaajihim oo ilaahay azwaajtooda haweenkooda aysan ka dhowrayn mooyaane azwaajtu markaasi ragga iyo dumarkaba waa zawj waa leeyahay oo naagtina zawjkeeda ka dhowri mayso ninkuna zawjadiisa ka dhowri maayo ilaa ala azwaajihim azwaajtooda mooyaane oo ama samaaki mooyaane malakad aymaanuhum midigyaalkooda ay milkiyeen taas waa xagga ragga adooman haday leeyihiin dumara ayagana milkul yamiin ay ku wadinayaan oo ama samaaki mooyaane malakad aymaanuhum midigyaashooda ay milkiyeen fa innahum kuwaasu غير ملومين هو لا دغالاي غيركود وي فانهم ايغو غير ملومين هو لا دغالاي وي معناها غيركود waayo loo dagaali maayo haweenkooday u tageen ama adoomanka ay leeyihiin
هسي شيء إلهي وحوده سبحانه وتعالى فمن ابتغى روح الضلبود إلهي وراء ذلك كاس قداشيسة قفك واحد ضلبه أو وحي كسوهر هوينك أما أدومنك وحان هين راشو حرامة فأولئك كوا صور إلهي هم العادون واكو حد قدبود إلهي حلاشة أي كتلاب سدين وهي أطلاب سدين حارانتي أطلاب سدين فمن ابتغى روح الضلبود إلهي سبحانه وتعالى وراء ذلك كاس لصوشي قداشيسة مثلا بوحاكم إذا كاس وحي كسوهر ولا الضلبه استمتاع أو مركزي بغير النكاح إنه سمايه إنه استمتاع أو سمايه أو ناكح الرمن أو مركزي كو استمتاع أو كو راحيسته نكاح الآن هي ملك اليمين الآن وي استمتاع مركزي وحوي أو بغير النكاح وملك اليمين وهي وراء ذلك تاساسه قليس فأولئك كوا صور إلهي أو إنتاس قداشو وحكال هذه هم العادون واكوا قدبوا أي حدود إلهي وحي لو وحي كتلاب سدين شيء حلاش أهاي أو إلهي أبني مركزي حرامي أطلاب سدين أرنت هذا وحي سوقلا إن علماء حرمة وضع ذكور تلوضيه لواتك إيه بهائم تحولها لوضيه إيه الزنادة وحصودم إيه استمنها سيجي وحصاد ما سوقلا ساعدك صومر جرمارة يا سورة المؤمنون والذين مصلين تاسوهم أيقوا أيود إلهي لأماناتهم أمانات كودة وحي اللي آمني أو أمر الدين والدنيا دينتنا أمانة وي الدنيا دنا أمانة وي والذين قواسوهم أيقوا أيود إلهي لأماناتهم أمانات كودة الإلهي وحي اللي آمني إفراد نوال آخرية لأمانتهم لإله إيه وعهدهم بلن كودة الإلهي بلن كاللغو قبتي راعونا كوا إلى لنا هذا نوع حوي وحيهين صفات كود وحاكمده إني أماناتك إلى ليان أماناتك أمانة دين تهنقطه ودين تسد أي تاي إني أو عمل فلان ودتك أو جارسيان أي مركز على جوده مركز أمانة إلهي إني خيانان ماهن أو يسكلوا الدنيا إيو ضرب كذا إيو يحيابك لو مارتي أخيال كلا إني أو أديكتان ماه iyo wa'ahdihim ballanka lagu qabta weeye waxyaabaha lagu aaminay amrudiin wa dunya weeye ahdigaan inuu min Allah oo ka ahaado oo ballan ilaahay sida takaaliiftina la saara salaadihi iyo soonka iyo xajki iyo muraas ama makhluuqa waxa la rabaa markaasi ahdiga in la ilaaliyo oo markaasi aan la dayicin raacuna ilaalina oo xifdinaya walladina musallin taasoo hum ayagu ayuu ilaahay بشهاداتهم شهادوين كود وحي كمرخاتك عينوي أما بشهادتهم إفراد الآخريو قائمونك وأقومايا شهادة شيء كمرخاتك عن هدو سيدي أو أهاي ومرخاتك عايا شهادة تزور مقلايان وحي كمرخاتك عين قرين مايان بل شهادة سيدي هذه وقدنايان حتى شهادته هبا أنفعه قفك عدوه أو قفك عدويسا قفك حبيب كيسا أنا حرب تحتها وعيل الشهادة إلهي الدلاديس إن لوجو تأيال ربا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وطول إلهي مركا فلا يخافون في الله اللهم طلائم إذا كبقى المجر أما شهادة سيدة هاي أي أوجدنا أمرخاتك عين أي هدون أمرخات فرايا والذين مصلين تاسوهم أيقوا عيود إلهي على صلاتهم صلاة دوضة يحافظونك وحفظنا يا صلاة دودنا way xifdinayaan ilaahay oo macnaha salaada ay xifdinayaan waxa laga wadaa salaada waxa weeye waxay ku ilaalinayaan salaada oo qaadeeda ayay ku ilaalinayaan yuhafiduna huwa xifdinaya hada salaada markii horena waa lagu bilaabay hadana waa lagu khatimay dhikriga salaadu la soo celcelinayo waxa lagu ishaarayaa inay markaas salaadu wax kasta ay ka weyn tahay oo arkaana أما وحكا صور لسكو خلفه محايا الصلاة بعد شهادتين عماد الدين واي دين تتير كيدي واي صلاة وحاوي دين ترنتير كي أي كتاقنيد واي فمن أقامها فقد أقام الدين قفك صلاة توسية دين توسية ومن هدمها فقد هدم قفك صلاة كتاقني دين ترنمو الدمية مركز صلاة إن لا إلال شو آدي مهم طاي صفات كاس إلهي مركو كسوشي وحوده إلهي أولئك كوا صور إلهي صفاتك أسكاله
في جنات جنوين أي أهانا يانو إلهي مكرمون حال إيهن كوا لما موسى يو إلهي أولئك كوا صور إلهي في جنات جنوين أي أهانا جنات كي أو مارت إلهي سبحانه وتعالى الدياري أي أهانا جنة دي قلا يانوي مكرمون إلهي كوا لكرامين أي ويوي جنة أي لو كرامين أي لو احترام يا dadki marka wanaagsanay ilaahay saas uu soo waramay sifaadkaas markay yeeshaan janna u dambaysa oo lagu karaamaynayo ilaahay hadana wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala fama lil ladina kuwa maxaa u sugnaaday oo ku dhacay ilaahay kafaru kufriyay muhdiciina xaaliyun kuwa soo degdegaya qibalaka jahadaada ka soo degdegaya anil yamiini midka soo degdegaya iyo wacani shimaali bidix ciziina xaalihin kuwa jamaacad ah mushrikiintii waqtiga nabigeena kaleey salaatu wasalaam joogay waxyaabo markaas ay ku kici jireen oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay ku dhibi jireen taasa ilaahay rasuulkiisa oo xasuusinaya fama lil ladina maadanu tadaway alladina kafaruna khabarkeedi waaye macnaha waxa ku dhacay weeyo u sugnaaday oo ku xambaaray inay maartay ku soo fiirshaan hadana ay kala tagaan waxay sameey jireen leeyri waliba munaafiqiintay u badnaayeen waxay sameey jireen halkaas ay iyagoo kooxa ayay soo istaagayaan rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa oo meel fadhiya halkaas meel ay istaagayaan wax showraaya ay iska dhigayaan inay rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay maartay argagax geliyaan waliba waqtiga Maka la joogay waayo islaamka lucfiga oo haystay halkaas ay istaagayaan markaas ay gacmahay soo taagtaagayaan gacmahay gedgedinayaan gabaad hadana waa kala tagayaan si la isu dhaho nimankaas waa tashadeen haday kala tashadeen waxay ku tashadeen ay ku dhaqaaqayaan oo inay idin dilaan ay doonayaan waxyaabo noocaas ay ku kici jireen markaas uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala fama lil ladina ku maxaa ku dhacow Ilaahay kafaru kufriyo Ilaahay muhdiciina xaalihin kuwa soo degdegaya qibalaka jahadaada oo mudiim nadar way araga saas idin ku fiiraan soo degdegaya ihdaacu waxa way idaamatu nadara leeyra isha saas qofka loogu haayo ama se waxa way la degdego anil yamiini midig xageeda ay ka soo degdegayaan oo Ilaahay iyo wacani shimaali bidix dhanka midig adiga ka xigtay bidix meesha ka xigta meel walba isaga imaahayaan ciziina xaalihin kuwa jamaacado koox ayagoo koox isu imaanayaan intaasna waxa way inay rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa inay cabsi galiyaan ay doonayaan hadana waxa way muuminiinta ayay ku jeesayaan oo markay halka isugu yimaadeen waxay leeyeen la in dakhalaha ulaa aljanna lanadkhulanaha qablahum kuwa sidaas u yaala haday janna galaan sida ay sheegayaan annagu ka horan galeeyna maxay la janna ma astaahilaanay leeyihiin dadka waxa way juhaaladaahu waxay dadka muuminiinta oo saalixiinta ay badankooda ay ku xaqiraan inay macnaha maadaama ay adduunyada xaggeeda waxba ka hayno adduunyadii markaas ay iska fuqara iyo iska yihiin ama xagga adduunyada dhibaato ay ka haysato waxay u haystaan dadkii marba hadii adduunyadiiba ayna waxba ku haysan inaynan aakhirana waxba ka ahayn oo hadii waxa weeye ay dad qiimo leh yihiin ay maal iyo ay haysan lahaayeen taas waxa weeye waartay wax Ilaahay maal uu ka doonayo ma jirto dadka iimaankiisa iyo quluubtiisa ayaa Ilaahay fiirinaya واتودا رسول كان عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم ولكن ينظر إلى قلوبكم إلهي بشر كي نفير ماي سورة ديه نفير ماي وحدنا إلهي وكليه مجرد لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو فيرنا يا قلوبتين وفيرنا يا بركاسي وحيليهن وركوة سيداس وياله أو باهداس أي هيستو أو رفاتكاس هيستو أو أرهدكو هيستو كواس هادي جنة قلان أناقا كهور قلين حيلا الجنة وحي اللي قليل هايواب أناقا الدنيا داس إيساس كويني وحي إسو هايستانبا إناي ضد لا احترام أيهين إلهي مركز وحونا إسو كورة الدنيا أيضمعوا ميو ضمع ياهور إلهي كل امرئ روح لأرك كل جيس أو منهم أيها كميدة أن يدخل إلا قلينايو جنة النعيم النعمة الجنة اللي إسكا قلايو أو إن محاوية جنة إلا إسكا قلايو ميو ضمع يا أيضمعوا ميو ضمع ياهور إلهي سبحانه وتعالى استفهام الإنكار ومركز بمعنى نفي مقالة حن أو إشاقين أيها إلهي كورة ديريا أيضمعوا ميو إسكا ضمع ياهور إلهي كل امرئ روح لأرك كل جيس أو منهم أيها كميدة أن يدخل إلا قلينايو
جنة النعيم جنة النعيم لقناي لا يوصن دمع وي كلا أيود إلهي كجوغ الإلهي وعنانا شل عنانا دمع عسى كجوغ الليه جنة يسكى دمعنا كلا إنا خلقناه مما يعلمون أيود إلهي سبحانه وتعالى كجوغ الإلهي إنا أنه خلقناهم وانو أبورناه الإلهي كواس جنة دمع لوغيري ما جنة عمل ربطاه إنا أنه خلقناهم وانو أبورناه الإلهي سيدا غير كود بانو أبورناه مما شيء أيانا كأبورنا يعلمون أي قرنيان ولذا سحوده إلهي سيداس دهاية oo jannada beenbeenta ku damcaaya waanu abuurnay dhahay alle waxaana ka abuurnay mimma shay yaclamuuna ay ogsoon yihiin walaxay og yihiin aan ka abuurnay waxaas ma jannaduga waxa laga abuuray waxa waaye manida laga abuuray nutfa laga abuuray nutfa la iska abuurana janna lagu ma damco oo qofku sidii loo abuuray haduu isaga joogo xagowda see jamca jannaha ku ilaa jannadu waxay rabtaa waxa lagu damcaa taqwada ilaahay iyo amal saalix la yimaado hawla la yimaado ayaa janna lagu damcaa ee qof sidii loo abuuray ah oo manidii laga abuuray isaga weynaado markaasi xayawaan iska nool ah kaasaas janna kuma helay waxaas markaasi waxa weeye waa xayawaannimo weeye qasadka aayadan laga leeyahay waxay tahay in markaasi makhluuqiin ay yihiin laga abuuray nutfa laga abuuray nutfana sideedaba caalamkeeda caalamul quds oo markaasi jannadi ah munaasab u maahan maxaa yeelay shay qarmoon waaye marka qofkii waxa weeye iimaan kaamil iyo daaca laga waayo akhlaaqda oo malakiyada oo malaa'igtana aan ka akhlaaq yeelanin jannada dukhulkeeda markaas inuu galo u darbamaayo ama u diyaar garooy maayo marka taas waxa tari mayso waa in markaasi jirkii la iska abuuray oo saas ahayo shaygaas qadarka laga abuuray in la dahiraa loo baahan yahay markaasuu dha ilaahay inna anagu khalaqnaahum waanu abuurnay mimma shay ayaanu ka abuurnay yaclamuuna ay ogsoon yihiin taasna janna lagu ma damca sideedaba marka hadda casharkeen intaas uu ku egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala aclam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh